مربتا إن إلهي سبحانه وتعالى وكفر الباب بدا خيرك هدوم مقالك كسو قارو لايك صار أصحابتا أسي قدبي سي أيغانا وحا ugu faa'iidaan saa adiga wax ugu faa'iiday sababaha ugu weyn ee barakada nolosha waa wanaajinta waalidka waalidkaaga inaad wanaajisid si wanaagsan inaad ula hadashid inaad u duceysid inaad u adeegtid inta ay nool yihiin hadday waalidkaagu dhinteen inaad ayagana aad u duceysid sadaqana aad u bixisid hadday nool yihiinna waa fursad qaali ah oo ku soo martay fursaddaasi waa inaad ka faa'iidaysataa waa albaab kuu furaya barako waa albaab kuu furaya khayr fara badan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa labadaada waalid ku waafajiyey aad la nooshahay ay nool yihiin waalidkaaga ka ducayso waalidkaaga u samafal waalidkaaga u adeeg waalidkaaga u duceey hadal wanaagsanna ku dheh ha ku oranin hadal ay dhibsanayaan ha u diidin adeeg hadday kuu dirsadaan ay ku yidhaahdaan wiilkaygiio waxaas noo soo qabo ha u diidin mar walboo salaad tukato waalidkaagu duceey hadday nool yihiin hadday dhinteen labadaba u duceey sadaqo u bixi waalidkaaga waa jannadii hoostaada taalla ka faa'iidaysa marka hadday hooyadaada kuu nooshahay waa meesha ugu fiicneed meesha ugu fiicneed waa marka haddii labadaada waalid ilaahay ku waafajiyey ay kula nool yihiin ay kula joogaan waa inaad waalidiintaada si wanaagsan ula dhaqantaa waa inaad waalidiintaada hadal fiican aad ku tiraahdaa waa inaad waalidiintaada u adeegtaa waxaana lagu helaa barako adduun iyo aakhira waxay hoos taallaa waalidka oo laga ducaysto labadaada waalid waxay kuu horseedi karaan inaad adduunkaana guulaysato aakharana janno aad ku dambaysid taas cagsigeeda waxaa dhici karta in adduunka haddii aad cagsi aad ku noqoto caasi waalideyn aad ku noqoto in adduunkiina aad rafaad iyo dhibaato iyo baaba iyo nolol xumo aad ku noolaatid aakharana macnaha laga yaaba in maarkan dee qof habaaranaad tahay qof habaaranna sidiisaba khayr ma leh marka waalidku waa inaan ka ducaysanaa waa fursad qaali ah ilaahayna soo marsiiyey muuqaalka hadduu ku soo gaaro asxaabtaada u gudbay meel dheerna gaarsii qof walboo baari ah waalidkiisa baari u ah muuqaalka ha sheer garay